horta reerkayga waxaa la yidhaahdaa gaameedle waxaan degnaa deegaanka u badannahay shabeellada hoose inkastoo hadda dadka odhan xamar kusoo guureen shabeellada hoose magaalada Marka qabiilkii aasaasay oo gaameedle la yidhaahdo ayaan horta kasoo jeednaa laakiin annaga haddii aan faanaynana waxay ku fiican tahay wax fiican inaan ku faano annaga waxaan nahay dadkii islaamka soo gaarsiiyey geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya dadkaasaan kasoo jeednaa taariikhda markay hijriyada ahayd 50 iyo wax la jiro halkaan ayaan joognon deganin dadka u malaynaya in maaragtay aan doon ku nimidna taasna qalbigeena ka bixiya annaga doon kuma imaanin annagoo lugeynayno hawl wadanaan nimid marka diinta islaamka ninkii ku soo gaarsiiyey ee farciisa uu ka soo jeedo xilliga aan hadda aniga tilmaamay waqti aad u dheer waayo qof Soomaali oo sheegan kara meesha aan joogo inuu jiro ila maaha taas markaan meesha suga haro waxaa kaloo ogaataan gaameedle boqortooyo ayuu ahaa oo magaalada Marka ka talinaysay Markana ma ahayn waxay ka talinaysay meelo badan oo waddanka ka mid ah haddana waxaan u badannahay magacaas gaameedle marka aad rabto waxaan u badannahay Marka Jilib Gendarshe ka soo noqo Xamar inta idimow Qoryooley Jeerow ilaa iyo Soomaali intay degtoona deganna marka aad barasho wanaagsan horta haddii aadan hore u kasaynin gaameedle waa nimankaas laakiin waxaan